يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم وحليه من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعة القيامة وحاكم على موين كذا إن علمك يرادو أما علمك والله قاد وعلمك شرعنا جهل يقول الصبنا ذو فافو وحقون شرع لبا والدين تيبا قرنا يبا ما بتشربا أما وابيريهاي إلى وحي قاريا سيد اللغو قاضي علمك ومد اللغو قاضي وعلمك شرعه. والنبي قلت له صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح البخاري النبي يقول صلى الله عليه وسلم علمك ددك اللغو قاضي مايو إن قلوبتooda laga masaxo oo ruuxi caalimka intuu seexdo bari isagoo jaahil soo toosi maayo laakiin cilmiga waxa loo qaadayaa biqabd ulama culimadiiba yaa la dilayaa way dhimanayaan way leeanayaan dadkii diinta yaqaanay cilmiga yaqaanayna cid ka reebaysa ma jirto laana daa'irti iyo dadkii cilmiga baran lahaa adduunyo lagu mashquulsan yahay qaar ganacsi bay erayaan gaarna maada iyo adduunyo baranayaan علمي الدين ترى وابا لغا زاهديبا عيدنا كما ريبين علمادي تقانينا waa dhimato haday kuwaasi tagaan dadkii dad waxay diin weydiiyaan bay u baahan yihiin dad juhala waxba garanaynin ayay intay culimo moodaan bay marka diin u dooranayaan weydiinayaan kuwiina xishoon maayaan way iska hadlayaan way fatwoonayaan ayagiina lumeen dadkiina waa lumiyeen culimadii marka waa dhimatay keedii waa weyna waa dhimatay kuwii yar yar waa ku daba jiraan wax cilumti reebahayana ma jiro cilumti sharaacadu waxay iska noqotay shay aan loo qastino ninkii uu qastana uusan meel badan ba ka gaadhin ba tii nabigu sheegay way salawaatu rabbi wa salaamu alayhi.